safaaradda ay ku leedahay magaalada Muqdisho dawladda Turkiga ayaa maanta si rasmi ah waxa ay u shaacisay in diyaaradda Turkish Airways ay bilaabi doonto duulimaadkii caadiga ahaa ee Istanbul iyo Muqdisho. Jamalutani Kani Tran oo ah safiirka u fadhiya dawladda Turkiga dalkan Soomaaliya oo maanta saxafiyiinta shir jaraa'id ugu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in diyaaradda Turkish Airways ay si toos ah u bilaabi doonto duulimaadkii Muqdisho Istanbul Muqdisho bisha Maaj ee foodeen ugu soo hayso. waxaana uu sheegay in diyaaradda Turkish Airways laba flight ay ka qaadi doonto Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho. Today I have good news. Finally, Turkish Airlines is starting regular flights Istanbul to Mogadishu. وأتكلم سنتين ما شاء الله معدن وحنا ننهي وبحين أدرس عن ديارة Turkish Airlines اللي بيلعبوا flight في مقدشو إسطنبول بحين. So first flight will be from Istanbul to Mogadishu on the 6th of March. And next day, 7th of March, the first flight from Mogadishu to Istanbul. Flight to Istanbul in Mogadishu kala doolay aan diyaaradaha waxay bilaaban doonaa 6 March 7 March. dhanka kale safiirka ayaa waxa uu sheegay arrintaani inay tahay guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed isla markaasina ay si wanaajinayso xiriirka ka dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga. su'aalaha ay saxafiyiintu weydiiyeen mowduuca ka baxsan safiirka Turkiga u fadhiyay dalka Soomaaliya Jamalutani Kani Tran ayaa mar la weydiiyay sida dawladda Turkiga ay u aragto shirka ka dhacaya magaalada London ee ay ka qayb galayaan kontonka dawladood iyo shirka Garowe ka furmay maanta ee looga hadlayo qadiyadda Soomaaliya. waxa uu sheegay in ay dawladdiisu si weyn u soo dhaweynayso shirarkaasi isla markaana ay ku hanweyn tahay in ay ka soo baxaan waxyaabo danaha Soomaaliya horay u sii socodsiin kara. That meeting actually, we were told that it is about to discuss the roadmap and what will happen after August. So this is mainly the issue they say to discuss. We will see there. hadalkan uu jeediyay maanta safiirka dawladda Turkiga ee Soomaaliya ayaa waxa uu yahay hadal dad badan oo Soomaali ah ay soo dhaweynayaan iyadoo dawladda Turkiga sanadkii hore ee 2011 ay toos u bilowday caawimaadda Soomaalida ay siinayso wixii ka dambeeyay markii gobolada koonfureed abaar ba'an ay ku dhufatay. Cabdi Kaamil Yusuf Maxamuud, Somali Saa TV, magaalada Muqdisho.